lacagta maalintii soo gashaa kaba yaraa ilaa $300 ilaa $380 adoo $520 baa ka dhiman imika jeebka ku haya lacagta soo gashaa waxa weeye ilaa $500 waayo aqoonyahankuna lacagta uu soo saaraa aniga iga kula hadlaya imika hadii aanan qaad soo qaadanin gaariga ma dhax fadhiyi karo ma garad shilinka ugu horeeya waxaan ku horeysinaa waa qaad midho geed saaran baa la yiri midho guntiga kugu jira looma daadiyo marka way nagu dhacday annagoo saadaalinayna inay tu ka badan in soo galayso ayaanu taayadii halignay markaasanu meeshii 0 soo istaagay waxa dhacday maalin iidayooyidi ay soo gashay $700 aan hay oo lacag badan aan xumi jiray waliba marka waxa furay xaaladeed xoog waad kaatay oo inaan magaranaysaa qeyrka inaan wax weydiisay oo maalintii iidahay ka saxayba oo naxdintii raxmadii ka tagtay wayna taadal marka afroobka kala soo baxda hadda lacagtan hayaa waa $500 waa saaka kaliya ayaan helay lacagta ay soo gashay marka kaydku waa wanaagsan yahay wadada niyo hargeysa ayaan anigoo u socdo meel darweyna la dhaaf ciidanka lagu tababaro ayaa waxa ku jiray oday deedna waxa $300 gaadhay ayaan u xidhnaa muddo 15 habeen aan bila camal ha ayaa jirtay oo xabab $500 marka $100 baa waay waxaan noqday aan dooxa u kaaday waxa weeye maanta oo kale $100 soo qaatay ayaan habeenkii ku qayiray subaxii ayaa waxa weeye aan u baahday $120 laan waxay noqotay ninkii xalay $100 qaatay ina $120 laan taa waa mahto kaydinta lacagta waa dhaqan nolosha dhaqaale ee qofka iyo bulshadaba horumar weyn u horseeda waa hab qofka ka caawiya inuu waajaho xaalado lama filaan ah isla markaana uu qorsheeyo mustaqbalkiisa uuna gaadho himilooyin dhaqaale oo fog laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah intee in leeg ayay bulshadeenu fahansan tahay muhiimadda kaydinta lacagta waan dhiganaa wax ilaahay noo qoro hadba wixii seebadada ku soo ara waxaan lama wixii kale 2,000 3,000 4,000 nooc walba كل سبق معاون دغنا صح هذا والله انه كده صح ومن اول في عنده هو wax anaga loo yeelo aduu goormaad bilowday inaad wax dhigato waxaan bilaabay sanad ka hor waxa maxaa ku kalifay inaad bilowdo waxa ku kalifay waxaan wata gaari kara oo lacag laga qaado maalin kasta 6,000 marseed oo dollar laga qaadi jiray marka sida darteed inaan ka baxo kirada iyo alaabta magarad sax ayay u kalifay sax bal ma jiraan waqti aad u baahatay inaad kayd lahaan lahayd oo waqtigaas balse aanad wax ka kaysan jirin oo hawlo kugu soo baxana aad lacag degdeg u baahatay aad iyo aad way badnay waxaan nooga sheegi kartaa wax si guud waxa dhacday maalin iidayooyidi ay soo gashay $700 aan hay oo lacag badan aan xumi jiray waliba marka waxa furay xaaladeed xoog waad kaatay oo inaan magaranaysaa qeyrka inaan wax weydiisay oo maalintii iidahay ka saxayba ayaa dhacday taas ay go'atay kharashaadka magaalada naga soo gala sidii hore ma horta aad uu adag yahay waliba labadii bilood u dambeeyay aad uu adag yahay saasoo tahay haddana aanu kirooyin iyo leyd iyo biyo iyo aan wax walba ka bixino inkastoo maciishada haddana qaali nagu tahay haddana waxaan la tacaalnaa in xaafadaha iyaga iyo reeraha iyaga aan naga soo cabanin maadaama dadka badankooda ay ku tuhmayaan oo denin gaadho watana aad tahay oo shaxaadkuna hadee waxa lagu soo shaxaadayo ma hayaduna ay ceebtayday wallaahi sidii hore laakiin ma aha imka aad bay noogu yar adag tahay ka waran adiga iyo wax dhigashada sida isku tihiin wallaahi wax dhigashada dee wanaga la tacaalayna ee kiradii ka dhigayna masaariftii ka bixinayna shaxaadkii ka bixinayna sidaasoo dee cashuurihii dawladda aanu ka bixinayno marka alxamdulillah wallaahi nimca lagu jiraa ma jiraa waqtiyaad aad u baahatay inaad lacag haysan lahayd oo ay hawlo kugu timid dabatana si degdeg aad lacag u baahatay balse aad jeebka ka weyday oo aad ka qoomamaysan wax haysan lahayd ha inaad way jirtaayo wadada niyo hargeysa ayaan anigoo u socdo meel darweyna la dhaaf ciidanka lagu tababaro ayaa waxa ku jiray oday deedna waxa $300 gaadhay ayaan u xidhnaa muddo 15 habeen taasan aad uga qoomameeyo kadib ayaan bilaabay inaan wax dhigto istaba meerays iyo hawl iyo reerka iyo koodhada xadaysaan wax ku darnay
deedna ma hayo haddii aad tiraa dee dadkii aad bay kula yaabeen maadaama nin gaadiid wato oo magaaladii ku jiro oo magaranaysa marka inaad wax dhigataa way fiican tahay bal maxaa caqabad inta badan waxa la yiraahdaa dhalinyarteenu isuma fiicna inay wax dhigtaan oo amba kharashaadka yar maalmaha soo gala way markiiba way isticmaalaan baa la yiraahdaa bal maxaad soo kartaa caqabadaha way jiraan oo way ka hortaagan yihiin dhalinyaro wax dhigtaan wallahi inaan way jirtaa oo mukhadaraadka qaadka imika ma aan cunayno anigayga kula hadlayaa imika haddii aanan qaad soo qaadanin gaadhiga ma dhex fadhiyi karo ma garad shilinka ugu horeeya waxaan ku horreysinaa waa qaadka ma garad qaadkaasina wuxuu noo saamaxaa inaanu wax naawinno oo aanu shaqayno oo bal way imanaysaa aanu ku fadhino laakiin haddii qaadka aanan hayn lahayn dee waxyaalo badan weyn noo dhigmi lahaayeenoo waan dhaafi lahayn heerka iminkaanu taagan dhalinyaro fara badanna waxaa ka hor taagan oo mukhadaraadka iyo qaadka ay cunayaan weliba siiba qaadka dhaqaale ruushka wala isku fiican yarta lacagta maalinkii ilaa 10 meelaas bay soo galaa 10 kisna igama baxaan hadda lacagtii wanaystaa waxaad sheegtay in maalinkii ugu yaraan 10 soo galaan 10kaaga ku naaduurso xataa bas aanad ka raacin lacagtaas maxay sideedaad ku qasin mustaqbalka walaad Afrika iyo Bangladesh inaan Afrika ka tagay kulkiina lacag ursado waxaan isku nahay si wanaagsan oo inaan dhalay bay fahamsiisay lacagta maalintii soo gashaa kaba yara ilaa $300 ilaa 380 adoo 520 baa ka dhiman imika bajeefka ku haya lacagtay soo gashaa waxa weeye ilaa $500 waayo aqoonyahankuna lacagta uu soo saara lacagta dahabshiil baan dhigtaa maxaanu dhiganayaa lacagta yani lacag iguma korodho ee aniga ayaa leeyahay iska xakamay si aad adigu bulshadaada haddii matal wax kugu dhacaan ama xanuun aad ku helo ama baahi kale ku hesho si aad markaa intaad baryi lahayd mid Norway joogo oo aan adeerku aan ku aqoonsanaynba ama gaaloobaya oo naxdintii iyo raxmadii ka tagtay waa inaad taadan markaa envelope kala soo baxda hadda lacagtan hayaa waa $500 waa saaka kaliya ayaan helay lacagta ay soo gashay marka kaydku waa wanaagsan yahay ay jirtaa waqti aan lacag lumiyay la sooray mayd xiis ceelaaya joogi jiray lacag maalintii aan fahamsanayn dollar ahaan waxay tahay oo ayay soo gali jirtay $150,000 waa $150,000 oo maanta jooga Watchline waxa ka dambeysay 35 sanadood lacagta maalintii baan cuni jiray oo maan ismaan lahayn waxba ka dambeeyay guri baad u baahan gurigan aan ku jiro waxaan moo jiraan anigu inaan leeyahay way wax yar oo jaban baa laga qaad jiray leedka lacag jaban baa laga qaad jiray biyaha lacag jaban baa laga qaad jiray waxaan soo qaatay marka inaan anigu leeyahayba lacagtan aan anigu haystaana way goyn lahayd marka guriga iyo leedka iyo biyahaba inaan anigu suleeyahay marka maanta fahmaan weynahay marka maanta waxaan doonayaa in jibri hagar qorka fulidu arinta fahmo dee wax yeesho aniga waxba way tarin bee bal inta la duuda ku ciyaarayo ama taanida kula jiro qamaray hodanay leeyahay inuu saas oo kale isla sameeyo dhaqaalaha maanta aan sameeyo maanta isagoo Norway joogan ka lacag badnay anigu marka idinkana waxaan kula talin lahaa Soomaalilaantiina inta cid bari lahaydeen ama hebel oo telefoon qabsan lahaydeen lacagta aan ururiyay aan ribada lahayn waxbana kugu kordhayn laakiin adigu aad kala soo baxayso markaad u baahato dee lacagta samaysta waxaan bilaabay inta badan ardaygu marka waalidkiisu uu ku tarbiyeeyo inuu 2,000 shilin wax siiyo inuu mid meel dhigto markaas uu qofku wax meel dhigan kara laakiin haddii aad soo kortay nolol iska adag oo aan saaca lagu siin oo aan lagu oran dhaqaaluhu saaweeyay inta meel ka dhigo intaana isticmaal marxaladaha hore markaad magaalada soo gasho wax kugu dhacaysa inaad kii ku shaxaado wada siiso kala bar siisaba waxa kugu dhacaysa inaad mar aad bilaa camal noqoto si saayid oo isticmaasho oo kaydkaad wada cuntaba ayaa kugu dhici karta marka in qofku dhaqaalaha uu fahmana xagga waalidka iyo macallimiinta iyo xaggaas ka imanaysa oo wacyigelin baan jirin dhaqaalaha oo TV-da laga sii daayo inkastoo culimadu ku daraan marka haddaanay jirin wacyigelin dhaqaalihii waxba kuma dhigmay inta hore ninka dhalinyarada markuu 25 gaadho 18 wixii ka sarreeya dee yani guurkii mustaqbalkii ay soo waajahaan ayuu inta badan in wax meel dhigto isku daya inta kale ma dhigto bal ma jira qisa ama adeeg kugu dhacday ama goobjoog oo ahayd inta badan markuuna qofku safety lahayn marka hawl degdeg ku timaado waxay noqotaa inuu ama tago ama meelaha cid garaaco adoo qisooyin adiga ma soo maray shakhsiyan ama dhacdo goobjoog ma waheed xasuusato marka qaar ku sii dhiiri gelisay inaad dhigaalkaaga sii kordhiso ها way ku dhacday wallahi
ciyaal hodheelaan inta badan hodheeladan ka soo bilaabay kadibna maraan bilaa camal ahaa ayaa jirtay oo xamaamku 500 ahaa markaa 500 ba waay waxaan noqday aan dooxa u kaadi tago markaa taasina way jirto yani waxbaad ku qaadanaysaa dee inaad berri aad wixii kugu dhacayna kugu dhici aad waxa urustay noqonaysaa had iyo jeer dhallinyaradeenna ama reer Somalilandba afarta ganacsatada mooyaane dadkeena muruq maalkii waa mustahlik oo had iyo jeer wixii ay soo qaataan waxa way isticmaalaan oo kayd ma laha sababa jira awgood hadduu yahay nin dhallinyaro ah wixii uu soo qaatay suuquu dib ula gelayaayo isagoo dee fashion ama steelkiisa dhisaya halkuu mustaqbalkiisa iyo pocket moneygiisa iyo accountkiisa kobcin lahaa ayuu dhar iyo wixii uu hadba u baahan yahay uu ku soo iibsanaya haddii ay noqoto kuwan kale muruq maalka ah shaqeeyana haddii jeer balwada ayaa lacagta ka lumiya oo waa shimbirta intay soo dhareegto taqdu khimaasan wa taruuhu bitana marka insha Allah bidna karim waxaan ku boorin lahaa dhalinyarada ama bulshooyinka Soomaaliland had iyo jeer wax la cuno lama waaye waxa wanaagsan wixii qofka mustaqbalkiisa dhisaya haddii uu qofka u damage ku dhaco ama dhaawac ama ay wax ku dhacaan cidba family-ga loo soo baraya ama waa loo amaad tagaya waxa muhiim ah everybody inaga mid oo shaqeeya inuu baahidiisa had iyo jeer uu isagu kobciyo oo pocket money yeesho account-kiisa soo baadha marka ay dib u dhac ku yimaadaan oo uu horumarna sameeyo ma aha qof dhan oo shaqeynayay in faraq islaameed loo soo baadho ama meel kale wax looga doono had iyo jeer dhalinyaraduna ha shaqeyso shaqada yar liidata ayaa tasare lagu gaadha aad iyo aad baan TV-gan u salaadna waa ku salaamay kolleyde nin way badan soo joogay baad ma jira qiso adiga kugu dhacday ama goobjoog ah iyadoo ku saabsanayd qof ay hawlo ku timid amba adiga hata ama cid kale goobjoog waato waqtiga aan jeebkiisa waxba ku jirin balse loo amaah tagay ama cid kale wax loo soo way aad iyo aad bay u dhowdahaybo had iyo jeer marar aanu qayli jirnay baa jirtay oo wixii aad haysay intaad sii isticmaasho ayaa matalan dilaal oo kala baa arrintaas kala go'aysa oo la gurigaasi uu dhamaanaya ama dhulkaasi uu dhamaanaya midho geed saaran baa la yidhi midho guntiga kugu jira looma daadiyo markaa way nagu dhacday annagoo saadaalinayna inay tu ka badan ina soo gelayso ayaanu taayadii halignay markaasanu meeshii zero soo istaagay annagaa bay nagu dhacday had iyo jeerna daily waa wax ka dhaca dalkeena Soomaaliland ama balwadi ha keento ama dhalinyaranimo ha keento had iyo jeerna waxa wanaagsan warda wixii la ururiyo un ba hada wixii la isticmaalaa way dhamaanayaan dhalinyaradu kayd ha yeelato dalka marka qofku waxay ku xiran tahay inaad sirta nolosha fahanto oo waxa weeye aad xisaabtanto xisaab bay ku xiran tahay taasuna waxa sameyn kara nin waxa weeye ama xisaabtama ama nin waayarago waxa weeye ka soo baxa balwadaha iyo waxa ka soo baxa oo waxa weeye iftiinka iyo waxa weeye sirta nolosha u soo talaaba ayuu baa fahmi kara bal adiga ka waran adigu soo isku tiin inaad wax qaysato anigu imka ilaa 7 sano waxa weeye inaan wax urursado tacab galo ayaan ku jiray intii ka horeysana balwadaha iyo waxa weeye waxay iska tacab qasaar bay ahaayeen oo marka waxa weeye hadda un baan isleeyahay dilaa ka dhigo aad rag gaadh marka wixii waxa weeye ka tacab horeeyay ka daba tag baan isleeyahay ma jira waqtiga aanad waxba urursan jirin waqtiyaha hawlaha kugu soo baxeen oo aad u baahatay inaad samaysan lahayd kayd hayo taas waa waxyaabaha waxa weeye inaad taas waa adaa u baahan noloshaada iyo naftaada oo dhan baa u baahan inay waxa weeye baahi ay kula kulanto baahida aad ilaaway oo aad ku cimri qaadato waxa weeye aad ilaawin oo aad wax ku qaadato noloshaada u baahan hal qiso kugu dhacday oo aad la wadaagi kartaa oo ku saabsan hayo tan waxa weeye maanta oo kale tan $100 soo qaatay ayaan habeenkii ku qayilay subaxii ayaa waxa weeye aan u baahday $120 laan waxay noqotay ninkii xalay $100 qaatay ina $120 laan taa waa amaah tagad marka taas wada qiso way ugu filayd markii dambe waxa weeye $100 meel alla meel aan kaga warramo asla yaabay ninkii xalay $100 gacanta ku hayay saakana u baahan $120 laan taa marka
boqolkii dollar wax alla waxaan ku qabtayna ma jirto waan ku qayiray markaa way jiraysaa taasi waxa weeye dhallinyaradana waxaan kula talinaya iyo bulshada inay waxa weeye qaadkana iska daayaan xisaabtamaan sirta nolosha fahmaan waxa weeye dhaqaalahooda kobciyaan tacab galaan waxa weeye khayrkood gaadhaan dee nolosha wanaagsan u tumbaracaan farxadda iyo wadajirka qoyskaagu waa adeegsiga xawaaraha sare leh ee internetka Telesom Fiber ku xooji ganacsigaaga internet xawaare sare leh oo aan kala go'ayn shirkadda Telesom waxay casriyeyn kuugu samaysay internetka fiberka guryaha iyo ganacsigaba si aad u soo gashato fiberka Telesom booqo xarunta kuugu dhow amba ka dalba website-ka telesom.com sidoo kale waxaad garaaci kartaa lambarka xidig 121 Telesom Fiber waa internetka ugu xawaaraha sareeya dalka